magaalada Burco ayaa maanta laga furay hotel casri ah oo lagu magacaabo Scandic Hotel waxaana xafladda lagu daahfirayay hotelkani ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco salaadiin waxgarad ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Maxamuud Aadan Cabdi mulkiilaha Scandic Hotel oo uu horeyn madasha ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay adeegyada uu bulshada u qaban doono hotelkani aad ayaan idinkaga mahad celinayaa kasoo qayb gasheen furitaanka hotelka Scandic and Restaurant haddaan warbixin kooban idinka siiyo qaybaha uu hotelku ka kooban yahay hotelku wuxuu ka kooban yahay qayb hurda iyo guest house iyo hoolalka shirarka iyo restaurantka waxaan ugu talagalay inaan ugu sameeyno dadweynaha cunto tayadoodu sareyso oo waxtar leh waxaan aad idinku mahadnaqayaa kasoo qaybgasheen mar labaad qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer iyo madax dhaqameed goobtaasi ka hadlay ayaa mulkiilaha hotelkani uga mahadnaqay maalgashiga ballaaran ee uu ku sameeyay dalkiisa waxaan u baarigayaa mulkiilaha hotelka Maxamuud Aadan Cabdi waxaan la ilaahay ku barakeeyo waxaan ka turjumaysaa kobaca dhaqaale ee gobolka ayay ka turjumaysaa waxaan loo baahan yahay qurba joog iyo cid kasta oo maartay wadanka maalgashanaysa inay sidan oo kale wadankoodu maalgashadaan dabadayda waxa ka muuqda booray ku taalo Scandic Hotel and Restaurant waxaan leeyahay Maxamuud Aadan Cabdi baateeye ilaahay ha barakeeyo rugta tan ilaahay rug barakaysan ha ka yeelo meel la dego dhaqanka Soomaaliga marka meel la dego ducooyin bay lahaayeen waxa la oran jiray ilaahay aanan mudane ku aasin aanan magayna geel ku qalin oo aanan adbeed maayo rug wanaagsan oo rabadin ah ayaa lagu ducaysan jiray waxaanu leenahay oo ku celcelinayna waxay la tahay inaynu maanta aynu Maxamuud nidhaahno Allah ku barakeeyo tacabkaagu waxaan leeyahay Maxamuud Aadan Cabdi ilaahay ha ku barakeeyo tacabka soo tacabtay ee dalkaagii keentay mar haddaad gurigaagii la timi oo aad timi waa sharfan tahay waanaad barakaysan tahay ilaahay ha ku barakeeyo halkan waxa looga baahan waa duco iyo macmiil wanaagsan la yeesho hotelkana uu ducaynaa ilaahay u barakeeyo dadkana waxaan ugu bogaadinaynaa inay hotelkan ku soo dhawaadaan oo aad ugu soo camiraan ayaanu dadkana ugu yeedhaynaa waxaan u ducaynaynaa mulkiilaha Maxamuud Aadan Cabdi furay hotelkan quruxda badan leh qurba joog aad iyo aad baan salaamina waan u ducaynaynaa barakallahu lakum aan kulana ilaahay ku barakeeyo waxa aad gashatay waxa haysaba qurba joog kalena waxa looga baahan yahay sidan oo kale in wax ku soo celiyaan qolada lacagta noo soo doonatay waxaan ka jecelahay sidan oo kale wax noogu dhiso shaqo abuur noo sameeya xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka tirsan golaha deegaanka Burco iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo ayaa iyaguna dhankooda boogaadiyay mulkiilaha Scandic Hotel iyagoo fariin u diray qurba jooga ka soo jeeda gobolka Togdheer waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan runtii marka hore waa u ducaynaynaa Maxamuud Aadan Cabdi oo isagoo mulkiilaha oo inoo furay hotelkan Scandic Hotel waana ku bogaadiyay runtii nin dhalinyaro oo qurba jooga oo runtii ugu muday waana ammaan baan muday inuu ku soo celiyay xaafadiisii halkii uu ku dhashay uu ku barbaaray wax ku bartay inuu maanta ganacsiga inta leeg inuu keeno runtii waanu ku bogaadeenaa hotelku wuxuu ku furnaanayaa runtii in la soo camiro oo la yimaado qurba joogana waxaan u sheegaynaa waxay in badan la weydiiyaan magaaladu ma laha hotel fiican male cunto fiican male maantaba waxa ka furan oo magaalada Burco laga furay Scandic Hotel waxaan kale u mahad celinayaa mulkiilaha Scandic Hotel oo nin dhalinyaro ah oo runtii mudan ku dayasho haddii qurba joog yihiin iyo haddii qurqul joog yihiinba haddaa ogaadeen reer Burco oo qabyaalada ku tartama islahaydeen iminka waxa lagu tartamayaa maalgashi iyo horumar iyo iskaashi wax wada qabsi إن شاء الله تعالى يسيجن بإذن الله يهي بإذن الله الكريم الرجال يا رير برعو الهوتيل كان عصب Scandic Hotel إن كاستمرون قندونه وهوتيل مقع كل قرب شوق إنه كقرن يهي مقع ومبلينا كي بنا يهي مقع عاس إن كاستمر فربضان يلانو
huteelkani ayaa ka mid noqon doona huteelada casriga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay lagu soo kordhinayay gobolka Togdheer. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco.